waxaan hadalkan ku bilaabi doonaa maxamed abiib yuusuf su-aasha ugu horreysay saddexdiinaba aan idin weydiinaya waxay tahay laakiin maxamed abiib aan ku bilaabi doonaa waxaad warbixin kooban aad naga siisaa taariikhdaada aqooneed waxbarasho khibradeed ee aad leedahay. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بقى ما تسكال على كأنه كل مية إنه نبض قبنا أنا وحنقول شيء مقالة دي وحصوصار الرق اللورني يبقى كل شيء 1986 halkaasaa dugsiga laga qoray kabacdi buuraman u wareegay halkaas ayaa wax ku bartay ilaa jaamacadda waxaan ahay ragga markii dee raggu kala baxbaxayay aan isku fasalka ahayn waxoogaa islahaa aragti baa kugu jirta ee dhinaca maad aragtay inaad bulshada u adeegto u jihaystay marka dee falilaahi alxamdu waxaan rajaynayaana inuu ilaahay uu nagu asturi doono waxaan isleeyahay imtixaankii ugu dambeeyey maxamed abiib 5 sanadood buu imtixaaman yahay waa meeshii aan beerteedii ku noqon lahaa ama ay bulshadu iisii aqoonsan lahayd inaan bulshada u adeego si damaca waaxda fulinta ee baawarkii iyo hantidii ummadda gacanta ku haysa loo kantaroolaa golahan loo sameeyey wakiilada waxaan arkayay dalkeennu in baahida ugu weyn ee maanta uu qaba ay tahay in golaha wakiiladu uu shaqeeyo oo waajibkiisa uu guto dalkeennu maad aragtay dowladnimadii sagaashamaadkii la aasaasay meel wanaagsan bay maraysaa structurekii baa dhismay skeleetonkii baa dhismay wax badan baa dhismay markaad eegto barigii guud ee dowladnimada wuu inoo dhisan yahay laakiin dowladnimadeenna waxa maqan ruuxda dowladnimada oo ah ijiinka dhaqaajiya waxa aynu dhisnay ijiinkii dhaqaajinayay baa ka dhiman ijiinkaasina waxa weeyaan waa isla xisaabtanka waa in shacabka wakiil laga noqdo oo cid bulshada ilaalinayso shacabka ilaalinaysa ay jirto oo xeerka ka eegaysa oo maaliyadda ka eegaysa oo ka eegaysa maad aragtay mas-uuliyiinta xadgudbaya qabanaysa oo shacabka wakiilka inay jirto markaan gaabkaas inuu bannaan yahay aan arkay baan anigu booskan isku taagay waxaan rajaynayaa haddii rabbi idmo inaan wixii aan isku sharaxay inaan waajibkeeda 5 sanadood aan ku taagnaado oo aan cidna uga tanaasulin waayo golaha wakiiladu ciidankana wakiil kama aha madaxweynaha wakiil kama aha dowladda maxkamadda sare wakiil kama aha aqalka madaxtooyada wakiil kama aha wuxuu wakiilu yahay shacabka mar kasta oo siyaasadda ay golaha soo hormarto adiga waxa laga rabaa inaad ka qiimayso shacabka maxaa ugu jira faa'iido khasaare maxaa ugu jira marka waxaan istusay inaan qofkaan noqon karo waxaad ka warantaan hanaankii aad u marteen amaba loo abaabulay doorashadii dalka ka dhacday 31 bishii May sanadkii 2021 waayo aragnimada aad ka hesheen eed uga faa'iideyn doontaan dadka kale iyaguna le hanka siyaasadeed mulka matasha qofka ilaahay wuxuu qadaro qofku ma waayo waa helaya la shaka fihi laakiin qayb waxa ka ilaahay baa yidhi washaawirhum fil amri fa idha casamta fatawakkal cala allah washaawirhum fil amri waxa weeye arrimahaaga isku dubarido tasho habayso jid jeexo go'aan gaarteetana fa idha casamta fatawakkal cala allah deetana tawakkulku waa qodobka saddexaad weeye marka qaar dadkeenu xagga dambe ka soo akhriyaan waxaad moodaa inay tawakkal ka soo bilaabayaan waa shaawirhum fil amri ay dambaysiinayaan marka horta inuu processka ay taladaada marto waa laga maarmaan anu maxamed abiib ahaan waxaan isa sharaxay oo doorashada isku taagay markii hore waxaan lahaa kuraasida saas lagu qaybiyo doorashada hal geliya rag lahabana haddana markii maxkamaddu u sareysay dalka laga hadashiyay hadaa dalkan mustaqbalka leedahay you have to obey inaad adeecdo weeyo oo qaadato tiraado waxa weeye khalad iyo sax mar hadii la isticmaalo maxkamadda ama si siyaasi loo isticmaalo ama si sax loo isticmaalo inaad qaadato weey because berri baan rabaa inaan rag ku xukumo berri baan rabaa anigana in la igu hoggaansamo istiraatiiji maaragtay processka sharci waa qaatay markaa qaataan xaafadda aqalkayga baan iska galay oo waa lagu defeat gareeyay saasa lagu galo waa lagu defeat gareeyay aqalkayga iska galay dad baa yimid dowladdeeniyo sharaxda doorashada dad sameysay oo bal hadda waxay dad badan baan tala keenay actually $100 maan haysanin anigu maalintan doorashada geliyay gaari maan haysanin aan ku ololeeyo ma garatay raga saaxiibanahay baa ila shiray subax ugu dhan maxamed abiib waan sugnay labadeenu waad ku ceeboobaysaa waxa weeyeen haysa sharax sabab
lacag ma haystid bay ku yidhahdeen qofka ugu yari $100,000 haddaa laga tegi waayo $70,000 aniguna $100 maayo waxa weeye waxaan ku yidhi anu lacagta dee uma aqaano dee haddaa lacagta dulmiga ah ee khaladka ah ee rabo golaha iyaga wakiiladu hadduu ummadda u naxayo inuu meesha ka saaro aan rabo si jiilka dambe ay fursad ugu helaan waa lacagta waxa weeye halkan nimankii nagu horreeyey $50,000 ay ku qoreen qofka maad aragtay ee xisbiyadu lacagta iska urursanayaan waa process dhan oo lacaga adduunyada waxaas waxba kama jiraan qofka waxa laga qaadayaa waa inuu yahay qofka ugu dakhliga hooseeya wuxuu iska bixin karaa inay noqoto weeye waxaan ku yidhi raggaa saaxiibkahayn waarun ilaahay baan la kaashanayaa inaan intaa ay ku qorqoreen ee baadilka ee lagu qoray boroseska sharciya haddaan helo nabadgelyo lacag waxba ugama baahni waaye ku socay yidhaahdeen waa galay run ahaantii habeenkii ugu dambeysay waxaan gaadhay anigoo lacagtii $50,000 aan haynin baan gaadhay ee cashuurta lagu bixinayay dowladda loo shubay 12 habeennimo baa ilaahay soo dhameeyey ya 12 habeennimo baa ilaahay soo dhameeyey subaxii baan bixiyey orod dayn raadi mid ku siiyo raadi mid maxay raadi markaad istiraado Soomaaliland ayaad ku hagaagtaa mararka qaar bay waa soo qaban adoo islaam mubaarak baaba kugu fuday ma kashanta ku ka dhiibaya magacii mubaarak baa kugu soo dhici waayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aabahay baa igala qayb galay ilaahay ha sharfaan nooleeyo wuxuu ii iibiyay aqalkayga rug ku yaalay aabahay actually kumay filnayn lacagta xisbiyadu qaadiyeen iyo maxaa la yidhahdaa iyo lacagtaasi kumay filnayn maalintii dad badan baan dayn weydiinay dad baan reernimadeedii sheegaya dayn baan raadino dad baa dee constituency-ga dee dadku dee markay ka hadlayaan ayaa bal wax nasiya maahay haddaad doonto gurigaa kalaba qaado oo dad berito may markaan yaalkan xisaabiya kusoo bixiya baan ayaan in yar baan ka hadlo waxaan idhi dadaal dheer iyo doondoon iyo raadin dheer ka bacdi ilaahay jaranjaradii dulmiga ahaa ee lasoo dhigo kuwii habeennimadii aan waa bal wax iga sii bixiya lahaaba igu soo horreeyo maxaad noo ceebeynaysaa karaamada nooga qaadaysaa waxaan ku sheegayaa doorashada lacagtu wixii boroso sharci ku xiran qayb bay ka tahay waxa kale qayb kama ah waa qodobka koowaad ee raba in hoosta ka xariiqay dadku fahmaa weeye weligaa hay sodhanin lacag la'aan meel ma gaadhi kartid waa been weeye